kusoo dhawaada walaalayaal mar kale cashirkeenan maanta waxaynu ku qaadan doonaa qaabka loo soo dhigo adhiska ama xayeysiiska qaabka loo dhex dhigo website-ka. Marka cashirkan inooguma jiro youtube-ka lama soo qaado code oo lama soo dhex dhigo, laakiinse anaa idin raacinayo oo waxaan rabaa inaad wax ku aragtaan ood ku waayaara ku qaadataan uma rabaa, laakiin kuma jiro youtube-ka. haddaba si aynu u soo dhigano xayeysiiska website ama meel page aynu soo dhigano uu soo aqbalay AdSense-ku. Marka AdSense-ku ma ogolaado website-ka ama URL-ka ilaa uu website-ka soo aqbalo. saas oo kale kuma ogolaanayo inaad soo dhigato xayeysiis. haddaba meel walba xayeysiiska ma dhigi karaysid. meeshu soo aqbalay ee codsiga usoo dirsatay ee uu soo eegay ee uu hubsaday inay sax tahay, meeshaasun baa la dhigi karaa. haddaba si aynu u dhigno waxaa lagaga baahan yahay inaad AdSense-kaaga gasho, kadibna halkaa waxaad furaysaa adhiska markaad furato ad unit baad oranaysaa. kadib ad unit markaad tiraahdo kuwani waa kuwii hore igu samaysnaa, markaa maadaama kuwaas hore igu samaysnaayeen waa inaan mid cusub sameeyaa. kadibna mid cusub markaan sameeyo waa inaan idhaaho marka saddexdan habba adhiska oo loo sameeyaa oo loo soo dhigtaa website-ada. markaa saddexdan mid baad dooranaysaa. markaa ka ugu quruxda badan leh waa kan aadkan aan u jeclahay anu. marka magac baad ku qoraysaa unitka magaciisii, waxaad intaas kaga qoraysaa. halkan waxaad taabanaysaa ma noocaad rabtaa, ma vertical marka vertical banner baan oranayaa mid dheer baan rabaa saas oo kale. marka xayeysiiska dhererkiisu maadaama intaa leeyahay, marka balliciisuna waa intaa. haddaba waad ballaarin kartaa balliciisa iyo waxyaalihiisa. halkan baad oranaysaa custom size baad oranaysaa. marka 720 waad ka dhigi kartaa, iyo marka widthka 720 maadaamanu mid vertical rabnay waxaynu ka dhiganaa halkan 720, halkan ka dhiganaa 720 height-ka. haddaba 720 height-keeni markaynu ka dhiganay halkan maxaynu ka dhiganaa, waa inaynu ka dhiganaa about 300 meelaha waynu ka dhiganaa 300 bay nooga dhig height-ka. markaynu intaan idhaahno sidaa, markaynu sidaa sameyno haddaba xayeysiiska haddaba noocaad rabtaa buu ku oranayaa, ma text ad baad rabtaa mise iyagoo wada socda. marka halkanna waxaad ka dooran kartaa text style-ka wax loo yaqaano, ma noocaad rabtaa inaad u dhigto oo ma baahnin. markaa kaasaynu iska dooranaa imika uu yahay. marka safe baynu oranaa angada code. marka code bayna siinayaa. code-keena markaynu qaadano copy baynu oranaa ama control iyo c saa u taqaanaan copy badhe. kadibna waxaad la tegaysaa website-kaagii. website-ka haddaba waa blogger-kan website-keenii. tusaale ahaan blogger-kan aan idinku tusayaa. blogger-ka waan idinku dhigi doonaa iyo designing-kaba korosyo gaaraan ku bixin doonaa iyagana. marka blogger-kan baan idinku bari doonaa, laakiinse haddaba si aynu usoo dhigno website-keenii code-kii aynu soo qaadanay, waxaynu u baahanaa inaynu halkan nimaadno layout-ka halkaa loo yaqaano. layout-ka markaan nimaadno dhinacaynu ka dhiganaa waa dhinacee, maadaama uu yahay bahalkeenii ama code-keenii vertical yahay oo vertical ahaan aynu isticmaalayno. markaa sidebar-kaynu dadeena meesha sidebar-ka loo yaqaano. markaa sidebar-kaynu dhigaynaa maadaama wuxuuna yahay vertical. haddaba sidebar-ka si aynu dhigno halkan baynu oranaa add widget baynu oranaa, add gadget baynu oranaa, kadibna add html maadaama uu yahay code wuxuunu waa inaynu halkaa dhignaa. kadibna safe baynu leenahay. kadibna waxaynu eegaynaa website-kii baynu booqanaa inagoo halkan taabanaa ma inoo dhigay mise inoomu dhigin. kadib marka aynu booqano saan inoogu soo baxo, hadda xayeysiisyadeenii waa ay inoo yaalaan. tusaale ahaan waa kan kaynu soo dhignay, hadda waa kan xayeysiiskii waa kan. haddaan halkaa click siiyo waa xayeysiiskii, lacag baa ii biiraysa account-kaygana igu dhacaysa. haddaba xayeysiiskii maadaama uu noocan yahay, xayeysiisyadii maadaama ay noocan yihiin, haddaba dhinacan markuu qofkii wixii daawanayo oo kale aayar buu arkaya xayeysiiskii, kadibna lacag baa kuu biiraysa. haddaba qofkii hadduu click siiyo lacagtii way noo bilaabanaysaa oo lacag baa inoogu dhacaysa account-keenii. haddaba dad badan baa fikiraya oo ficil qabanaya kulley sidan u arko oo oranaya mar haddii click wixii yihiin oo marka qofkii taabto click haddaan lacag ku helayo, miyaan layga xidhayn bahalkii, miyaanan lacag badan helayn haddaan maanta o dhan kale click siiyo. marka dadkaas oo kale ayay ficil qabanayaa. marka walaalayaal click-ta badan waa laga xidhayaa adhiska. marka haddii aad click-ta 5 jeer siiso click adigoo account-kan leh, markaba wax IP address la yidhahdo Google ku helaya. IP address-kaas haddii same place lagaga soo dhuftay uu kaa xidhayaa adhiska. 30 days waanu ku ganaaxayaa. marka hore 30 cisho lagaa xanibayaa. 30 cisho waa lagu soo deynayaa. haddana haddaad edebeysatid
haddaad haddana wixii ku celcelisid oo ariska aad iskaga dhufdhufatid oo taataabatid waa lagaa xidhaya abadan dubna lagugu soo dayn maayo block suspended buu ka oranaya Google AdSense account-kaagu haddaba weligaa iska ilaali walaalayaal inaad taataabataan oo xayeysiiska aad idinku isku dhufdhufataan si lacag aad u heshaan markaa waan idinka digayaa taa maadaama idinka xidhmayo oo dee aniga hore igu soo dhacdo nanuu tijaabiyey wixii mar haddii aan idinkaga horreeyey waan idinka khibrad roonahay markaa marka hore 30 cisho lagu ganaaxayaa hadhow haddaad ku celisid mar labaad khalaas uu kaa xidhmay akoonkaaga markaa waynu ka taxadiraysaan inay gacantu idinkaga dhacdana waad iska ilaalinaysaan oo idinkaga dhacdhacdo gacantu haddaba waa inoo iyo cashirka xiga iyo habab kale oo aynu channelkeena ku monetize garayn karno oo aynu lacag uga samayn karayno waa inoo iyo casharada dambe والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته